عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودرنتنا هاي إن ليت هاي أو لضاهي وقت جبنا لسوقاتي وإن سلام يا قفل بحنكو سلام يا منصبك وكفرديو يمجع وكفرديو ما إذا كل شيء جايو سيقولنا إذا سلام يا شرف يكرام كركين هاتو أنا مجعي جمنا حسن محمد واي waxaan ku bartay dalka gudihiisa masterkayga ugu dambeeyay waxaan ka sameeyay Kofi Annan University Political Science and Peace and Security aan ka sameeyay last year aan soo gabagabeeyay masterkayga ugu dambeeyay alxamdulillah waxaan ahay gabar activist ee wadankan ka shaqeynaysa in muddo qaasatan ka shaqeynaysa arrimaha human rights-ka iyo qof u dhaqaaqda dhalinyarada waxaan in badan la shaqeynayay hay'adaha kala duwan inkastoo aan dawladdu ku badnayn laakiin haddana private sectorska iyo waxaa la shaqeynaya hay'adaha aan dawliga ahayn oo non organizationka aan ahayn oo international organizationka aan la shaqeynaya maxalima ugu horeysay dadkii aan la shaqo bilaabay aniga oo ka shaqeynayo child protection oo arrimaha caruurta Soomaaliyeed ka shaqeynayo kala shaqeyn jiray Dhuusamareeb ugu tagi jiray intaas kadib waxaan ahaa gabar u dhaqaaqda arrimaha bulshada oo civil society-ga wadankan kamid ah basically waxaan ku dhashay oo ku soo barbaaray dugsigayga dhexe iyo sare aan ku soo qaatay magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan kadib waxaan u soo guuray magaaladan Muqdisho oo aan ka bilaabay arrimahaygii activist-ka ahaa anigoo ka shaqeynaya hay'adaha international haddana waxaan door bidi jiray inay tahay in la ii baahan yahay kaalintii bulsho inaan buuxin karo oo aan dadkayga codka aan lahayn oo voiceless-ka aan codkooda ku hadli karo in muddo markaan problemkaas ka shaqeynaynay oo ilaa hadda aan ku dhex jirno haddana shaqooyin kala duwan oo aan soo qabtay oo ka mid tahay dib u heshiisiinta arrimaha haweenka u doodistooda ka qaybgalkooda siyaasadda inaan u diyaar garowno in journalism aan ahaa maamada ay xasuusinaysa basically waxaan bachelor ka sameeyay wuxuu ahaa politics waxaan ka sameeyay journalism aan ka sameeyay bachelor-kaygii ugu horeeyay shaqooyin kala duwan aan soo qabtay waxaa ka mid ahaa inaan ka shaqeynayo arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadda oo odayaasha qaar aan la shaqeynayay oo anoo yar oo gabar yar ah haddana ilmo yar haysata aan wadankan u soo qariibay oo aan u ahaa qof advocacy ah markii aan kulamada ka qayb galo runtii caqabaadka faraha badnaa oo dalka aan ka mid yani kala kulano waxaa ka mid ah markaan ka qayb galo kulamada looga hadlayo arrimaha qabiilka oo lagu dhexdhexaadinayo dib u heshiisiinada lagu sameynayo dhucisha yartaa ma naga kaxaysaan warkeenay qaadaysaa yani marxalad kala soo maray aad u fara badnayd intaas kadib waxaan ka shaqeynaynay oo u ololeynay in gabdhaha Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda oo aan ahayn mid la baryayo oo la tuugayo aan ahayn ay yihiin gabdho Ilaahay karaameeyay aqoontooda ay ku filan tahay dadnimadoodana banaanka ku imaado markastana waxaan aaminsanahay fakarka in gabadhu inay xor tahay wax baratay Ilaahay karaameeyay cidna aysan marti oga ahayn doonista iyo waxa iyadoo ay rabto oo amahanka ku jiro aysan gadaal u dhiganin intaas kadib hay'adaha internationalkan la shaqeynayay hadda oo aan ahay xafiiska siyaasadda African Union oo officer ka ahay waxaan u ololeeyaa arrimaha siyaasadda ee gabdhaha si gabdhaha Soomaaliyeed ee doorkooda u heli lahaayeen oo aan ahayn mid la baryaayo oo la tuugayo oo la leeyahay hana la siiyo laakiin ay tahay in gabdhuhu intay ismuujiyaan soo ritaan because wax kasta waxa asal u ah qofka inuu ka go'an tahay ka go'naansho leedahay reerkiisana ku dhex jira wadanka 4.5 oo aade iyadoo aysan jirin dadka inay meel lagu tiriyo aanan ogeyn oo dadku ay ku kala yaryihiin haddana waxa wax lagu daray qabiil oo aanan ka sikarin macnaha adigu aad bulshada ku dhex leedahay oo ay ka qiimo badan yahay gabadhii wax baratay oo cilmiga iyo garaadka iyo akhlaaqiyadkeeda bulshada wax ugu tareysay uu kaga qiimo badan yahay midka yarka ee aanan aqoonta badan lahayn ee qabiilka u ololay ee dilaaga ah ee qoriga haysto ee qabiilka magac ku difaacay uu kaga qiimo badan yahay ayadoo saas ay tahay haddana waxaan ku dhiiranay inaan u diyaar garowno in dalkan dib u dhiskiisa ama xasilinta siyaasadeed ee dalkan uu rabo in aan rabno in aan la higsano in gabdhuhu ay kaalin ku yeeshaan kaas gabdhuhu Soomaaliyeed waxa aaminsan yahay inay yihiin hanti ummadan ay leedahay wadanka meelna uga ma socono caruurteena iyo ubuucdeena
iyo xandhadeeniya ku duugan meelna kama aadayno ani shakhsiyan laba caruur aan leeyahay waddankan ii joogto ayagaan wax ku baray wiilkayga ugu weyn 17 years oo jaamacadoo dhigtaa kulliyadda dhaqaalaha oo diyaarinaya haddeertaan gabadhayda yarta waa dugsi dhexe dugsiga waa class 6 waaye istabraq dadkan oo yaqaana social media laga bartay quraanka dhameysay saddexdoodaba labadoodaba min 3 jeer quraanka dhameeyeen marka ilaaha ku maasan ayadoo saas ay tahay oo bulshada ku dhex jirno oo bulshada wax u qabanayno oo shaqooyinkeena qabanayno aan haddana waxaan ka warqabnaa waalidiinteeni caruurteeni iyo guryaheeni marka gabdhaha Soomaaliyeed ma ahan gabdho liidan innagana ma ahan inaan iska dhigno inaan liidannahay inuu naga sareeyo qofka yes ilaahay quraankiisa uu ku sheegay waa ilaahay uu ku karaameeyay wuxuu ku karaameeyay oo dunidan kugu kor karaameeyay ina isku sitihiin ina isku sadtihiin sadkana aan leedahay midka asaga la siiyayna ay ku kala duwan tihiin yaani dhaxalka in ilaahay adiga konton ka sameeyay asagana 100 ka sameeyay oo ilaahay ula dal lahaa yaani كرام يعني وحيابا قوني وإلهي ولدان هاي نلاش اللي وكلا سعراي تذكر تاس وأرين أدو وين مركا وح أمه مو يعني سلكوا شقدا معه وحبرشدا معهن كنتن شقدا معهن وحبرشدا معهن عافمات كمعهن حيل كمعهن لحق إسلحقال كمعه وحقبت كمعه كرتيد معه وحن كو جلاسها سجاشن يسدح ويلان كو جلاسها جلاس كيلا فديه تدبا gabdhoodaan ku ahayn todobada gabdhood anaa ka haro ka qalin jibiyo waxay ugu hareena maahan yaani inay awood kari waayeen ma gabadhii ama dhaqaale darre u hartay ama waxay weysay cid ku sabood gareysay weysay ama waxay weysay ama way guursato guurkii uga hartay way suurta gali weysay inay wixii sii wadato marka in adigu ay aad diyaar u noqotid inaad hankaada uusan jabin oo aad u diyaar garowdid in dawladnimada iyo nabadda iyo maxaa la dhahaa horumarka bulshadu aad gacantaada qayb ka noqon kartid inaad keentid waxaad markasta ku guuleysanaysaa hamigaada ah in dalkan dib u kabashadiisii iyo dawladnimadiisuba aad qayb ku yeelatid intaas kadib waxaa muhiim ah marka inaan anaga diyaar u noqono gabdhaheena in badan oo gabdhahu ka mid ah waxaa dib noo dhiga inaan dhahno inaan inaga iskaalmeynin waxaan midal ku soo qaadaya aniga hadda waxaan u ordayaa kursi la yaraa 039 oo beledweyne yaala u ordayaa kursiga gabadha last year ku fadhisay waxa u soo istaagay 7 nin oo kaleente oo diyaar u ah in la furo imagine 7dooda qayb kamida kulli moodo dhikar qayb kamida waxa dhaqaalaha oo aruurnaayo gabdho waaye waxa taageerayo oo lacaga isugu soo dardarayo waa familada jifooyinkooda yani jifo lagu kala socda jifooyinka sabood gareenayo halka anigana aan eedo iyo adeer xitaa aan $1 isiinaynin oo laga yaabo in ay yiraahdaan maxaa ka doonay shaqo fiican haysata ha aadin qabiil waxa ka raadsan aniga aan leeyahay waa aadi karaa waana qaban karaa shaqadaas nimankaas dhanna waa ka guuleysan karaa ilaahay hadduu guusha isiinayo marka maalinna ma la rabo in gabdhaha Soomaaliyeed ee dib isu dhigaan quruxdan iyo dib u kabashadan dalkan waxa qayb ka ah gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinkeena dhaxda u xirtay markuu 91kii dalkan burburay ragga waa kuwa isdilaayay ee isgowracay waxa caruurta soo badbaadiyay iskuuladeena dib noogu celiyay ee badarka noo beegay hooyaday ana curud u ahaa waxay ahayd isla yaro business women oo ganacsi yar iska haysato caruurtii markay shaqada aad subaxi anigana aan iskuulka ka daba aado aan quraacda markaan caruurta kala siiyo dugsiga u diro laba aniga iga yareed aan dugsiga u kala diro iskuulka markaan soo noqonayo waxaan soo gadan jiray qudaarta hilibka yaanyada adeeg inta soo gato aan qadada u kariyo oo qada siiyo oo aan qadadii guriga marka aan kala hagaajiyo haddana hooyo inta u tagan soo bedelo markaan hooyo soo bedelo guriga imaado markaan ka soo baxaa waxaan aadi jiray private habeenkii markaas hooyaday waxa la dhigi jiray gabar habeen baxdo waa dhilowda hooyo ii diidi jirtay marka qaar markaas markay salaada tukanayso Allahu akbar markay dhada horteeda mara salaada ka soo baxay waaye iga daba imo yaani xaafadaha dariska dhan waxay dhigi jiray gabartaada habeenay baxda way habeen ay u baxee
ما كعليس مركا dadku ma fahansaneen yani macnaha iyo aniga ajendaha aan lahaa oo aragtida aan iga buuxday iyo visionkayga ahaa inaan un maalin inta wax barto aniga aan wax istaro oo hooyadeyna aan wax taro taas aragtidii aan aniga aaminsanaay ahayd gabar kasta oo Soomaaliyeedna way aaminsan tahay laakiin waxa la idin rabnaa inaadan hanjabin wax kasta aan tigsan karno marka waa ku soo fursado badan yaalo gabdhaha waxaan ku dhiirigelinayaa inaysan niyo jabin oo ay apply gareeyaan hay'adaha internationalka ah numberka ka shaqeeya gabdhaha aad u yar yihiin aniga meelaan ku jiro oo ana African Union xafiiska siyaasadda la shaqeeya qaybta civilka ka shaqeyso arrimahan bulshada iyo ka shaqeyso siyaasadda ka shaqeyso waa markii ugu horeysay oo dad Soomaaliyeed loo qaatay saraaxa 13 sano kadib 3 qofood oo Soomaaliya qaateen imtixaanka aan galnay waxaan sugaynay 3 sano oo maalinna la dhahayo waxa la qaad interview laga qaada maalin written soo gal maalin wala guuleysatay 3 sano kadib waxay dhacday in barnaamij dabagala oo VOA-da ay dabagalaysay lagu wareysto oo la yiraahdo maxaa keenay in shaqaalaha intaas imtixaan la qaaday aan dib loo raacanin oo aan shaqadii ladin siinin wiilashii ila qaad imtixaanka ila galay 2 gabdhood iyo waxaan ahayn 11 wiil cid hadashaa la waa ana hadlaan kaana ool ma shaqo ihaayeen ani hatta wax ma 3 sano wax maqan yihiin maalin walba warqad been ay soo diraan iyo kan ana hadlaay waxa habeenkii anoo Nigeria u aaday course ka sameeynayo oo gender and peace and security ka sameeynayo aaday ay soo waceen email ii soo direen la yiri shaqadaada waa lagu offer garay waa shalo camal markuu idaacadu ka baxday VOA ka baxday programka ayagiina cid wacda ma jirto 2 qof oo kalanta 2 wiil oo kalanta soo gashay marka waxa la jeedaa hay'adaha internationalka dadka apply gareenaya raga u badan dhalinyaro wiilala u badan gabdhuhu waa inay gabdho badan wax bartaa jiro oo guriyaha iska joogo UN jobs ka gala apply gareeya hay'adaha reference-ga daa u baahantiin gabdho badan oo reference idin noqon kara jiro ha isku xirina inaad maxaan ku dhahaa ama odaykaada daba fariisato ama wiil yar oo qabiilkaada daba fariisato ha isku dayin mar walba waxa ku tala gashaa in waxa adiga aad baratid iyo waxa adiga aad shaqaysatid aad tahay hanti aad leedahay weligay qabiilkayga sheegaysaa adeerkay ima caawinin entire life-kayga boog ima gadin xitaa iguma dhiirigelin inaan hore u socdo marka mar walba idinka jaanisa haysatiin waxa heli kartiin gabdho idin dhiirigeliyo oo idin idin garab istaago marka finally waa idinku dheeraada raalaha waqtigan aad u yar yahay gabdho inaad dadaashiin muhiim waay aniga oo intaas hooyo ahaa siyaasadda ka shaqeynayay arrimaha bulshada ka shaqeynayay maanta haddana waxaan bilaabay inaan business sameeyo business women-kan ku soo biiray waxaan sameeyay dukaan oo loogu talagalay dharka markada ragga oo ragaan dhahay bas gabdhihii batay oo wixii gabdhaha u daayay waxaan isiri nimanka ciriiriba markaan maadaama aysan jirin gabar hadda dukaan weyn inta samaysatay oo dhar rag gadayso oo ragga kale inta la challenge gareynayso inaysan jirin maanta jaanisa haysataa oo inaad raggii dharkii aad ugu iibisid marka soo dhawaad waxaa la yiri dhar gadoobe gada siyaasad uma socoto siyaasadda waa u socdaa waa mahadsantiin shukran